xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib ayaa maanta lumiyay kursiga xildhibaannimo ee golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya sida uu shaaciyay guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Kursigan oo tirsigiisu yahay Hob 201 waxaa markuu fadhin jiray wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle kaasi oo hadda dib ugu laabtay Somaliland. Kursigan waxaa laga leeyahay magaalada Boorama wuxuu ahaa muddo-xileedkiisii koowaad ee Cabdullaahi Xaashi Abiib oo ku cusub siyaasadda saaxadda Soomaaliya. ninkan ayaa noqday mucaarad si weyn ugu soo horjooda maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo si joogto ah dacwo uga qora dowladaha waaweyn ee adduunka wuxuuna si gaar ah Xasan Sheekh Maxamuud iyo nidaamkiisa ugu haystaa masuq sida weyn ugu baahay labadii sano ee la soo dhaafay. kiiska xildhibaan Cabdullaahi Xaashi Abiib ayaa dhawaan la keenay guddiga joogtada ah ee golaha shacabka iyadoo lagu soo eedeeyay inuusan fadhiyada baarlamaanka soo xaadirin in ka badan 2 fadhi oo xiriir ah. waxaa arrinkan loo saaray guddi xildhibaanaha waxaana loo soo jeediyay in lala hadlo oo la yiraahdo dalka ku imow muddo 10 cisho ah oo ka soo qayb gal fadhiyada baarlamaanka. mid ka mid ah xildhibaanadii loo diray inay la hadlaan ayaa inuu xaqiijiyay inuu Cabdullaahi Xaashi Abiib ka cudur daartay inuu Muqdisho xilligan yimaado sababo amni dartooda. ninkan ayaa dhowr jeer la wariyay inuu hanjabaad kala kulmay madaxda dowladda federaalka markii uu dowladda waaweyn iyo hay'adaha caalami ah u gudbiyay nuqullo ku saabsan wax isdaman lagu sameeyay habka Soomaaliya iyo xoolaha qaranka. sida uu dhigay dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 59aad farqadiisa koowaad xarafkiisa D mudanaha ka maqnaada kulamada baarlamaanka 2 kala fadhi oo xiriir ah iyadoo aan jirin sabab maangal ah wuxuu luminayaa xubinimada baarlamaanka. qodobkani maadaama uu sheegay in sabab maangal ah lagu maqnaan karo 2 fadhi oo xiriir ah xildhibaankiina uu sheegay inuu duruufo amni sida aan ka soo xiganay mid ka mid ah xildhibaanada aan la hadalnay. haddaba taasi ma noqon kartaa sabab maangal ah oo kursigiisa lagu qaadan karin? waa dood furmi karta. dhawaan sidaan oo kale waxaa la sheegay inuu kursigiisa aqalka sare lumiyay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Saalax Jaamac laakiin Saalax waa ka soo horjoostay arrintaas wuuna isdifaacay ugu dambeyn kursigiisii waa looga leexday. si walbaba Sheekh Aadan Madoobe oo markii labaad nasiib u yeeshay inuu hogaamiyo golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa la xasuustaa inuu muddo-xileedkiisii hore sidaan oo kale xildhibaano uga eriyay baarlamaanka Soomaaliya. haddaba sidee u aragtaa adiga?